magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug waxaa maanta soo gaaray inta badan ergooyinka beelaha ay ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta Galmudug kaasi oo la filayo inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb dhawaan. Ergooyinka ayaa waxay ka kala yimaadeen degmooyinka Caabud waa Qabalanbale iyo sidoo kale magaalada Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga shirka dib u heshiisiinta Galmudug. Sidoo kale xubnaha ayaa waxaa la dejiyay xarumihii loogu talagalay iyaguna ka qayb qaadan shirka dhawaana ka furmaya magaalada Dhuusamareeb magaalada madaxda annagoo ka soconna xamar hogaaminaynana ergooyinka anagoo Maxamuud Cali nabadoonka guud ee Maxamuud Hiraab ergooyinka maxaa tiraahdaa Maxamuud Hiraab waxaan walaalayaal leenahay ugu baaqaynaa dhammaan 11 beelood ee arintan naga wada dhaxaysay inay ayaguna maxaa tiraahdaa si aynu u yagleelno u dhisno dawladdii Galmudug inaan u dhisno inay ayaguna ka soo qayb galaan. waxaan halkaan u nimid inaan gudanno waajibaadka dadkan ku degan gobolkan Galmudug goboladan Galmudug u dhashay oo dib u heshiisiin xoogaa waayahan kala maqmaqnaa dawladda federaalka ahuna ay garatay maaragtay dadkii in la istuso waxyaalaha dhex yaalna maaragtay la detail hoos loo wada hadlo la dhameeyo intaasaan u nimid gudoomiyaha xogeenka iyo guddiga dib u heshiisiinta iyo walaalaha qaybaha badan ee hortayada taagan reer Dhuusamareebna soo dhaweeyay oo aad baad yaan idinku mahad celinayna anagu waa dhownahay warkuna waa kooban yahay anagu waa nimid farxad baan yaan la nimid waxaana way walaalaha kalena waa idin la soo dhaweyn doonaa danahana waa u tashan doonaa insha Allah qaadir aad baan idinkaga mahad celinaynaa halkani waa caasimadii Galmudug waxaanu diyaar u nahay oo aanu ku soo tashanay oo ergadeennii ayadoo cid aysan naga maqneen ku soconnaa sida guddiga qabanqaabada inoogu baaqeen inaannu dhulkeenna dhisanno inaannu si wanaagsan uga qayb galno dib u heshiisiintaas oo si calool ah oo niyad furid ah aanu uga qayb galno haddii alla wada ogolaado waxaan leeyahay walaalaheenna soo degay oo murursade oo ugaasku hogaaminayo gacmo furan iyo farxad iyo qalbi nadiif ah ku soo dhawaada madaxdii dalkana waa maqlaydeen oo maaragtay ama hore u jirtay ama hadda joogta annaga shacab ahaanna waa idin soo dhawaynaynaa haddaanu nahay shacabka deegaanka gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug Cabdiraxmaan Cabdilaahi Baadiyow ayaa sheegay in qaybo badan oo kamid ah ergooyinka ay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb oo uga mahad celinayo sida ay u yimaadeen magaalada. farxad weyn noo ah maanta inay soo bilowdeen ergooyinkii beelihii Galmudug oo shirka aan qabanqaabinaynay muddada bisha ku dhow aan ugu yeernay inay soo ajiibeen farxad weyn bay noo tahay maanta waxa waaye kooxdii ugu horeysay oo rasmiga ahayd ayaa nooga timiday waxaan dhahaynaa ku soo dhawaada Dhuusamareeb caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ayaan dhahaynaa waxaan haddaanahay guddiga qabanqaabadana farxad aan la malay karin ayaa intaas ay noo tahay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa dhammaan ergooyinka soo gaaray magaalada Dhuusamareeb waxa uu uga mahad celiyay sida wanaagsan ay u ajiibeen guddiga baaqi ay jeediyeen kaasi oo ahaa in shirka Dhuusamareeb ka furmaya ayaa ka soo qayb galaan. waxaan leenahay kuwii hore idinkaba marxaban baan idin leenahay ahlan wa sahlan wa marxaban beesha tan mursade runtii waxa weeye maadaama beela loo imaanahay beel walba magaceeda la sheegahay marka dadka dad walaala waa kala beel ma waa walaalo waa mid ayaka dham inta isu soo hiloobeen isu imaanahay marka waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada guul ku soo dhawaada. Maxamed Cabduuli Tooxow TV-ga caalamiga ah Universal Dhuusamareeb.